السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada channelka PSD insha Allah taala maanta waxaan baran doonaa qaabka loo sameeyo website free ah marka ugu horeysa waxaad tagaysaa blogger.com linkiga waxaa ka helaysaa description-ka videoga hoostiisa intaadan ciwaankan tagin marka ugu horeysa waa inaad ciwaan Gmail leedahay laana ciwaan Gmail u baahan yahay marka labaad waa inaad template ka soo xawlataa طبعا isagu template ayuu ku siinayaa sambala laakiin kuwa waa laga fiican yahay wax iska weeye marka waxa sameynaysaa si aad template u soo xawlatid waxaad tagaysaa isna ciwaankan oo aad ka helaysid videoga description-ka hoostiisa soratemplates.com waa ujeedaa template aad u fara badan ayuu hayaa kuwa aad u fara badan adaa barbaaranaya anagu waqti ma rabno inaan iskaga lumino ka ugu horeeyana tusaale ku qaadanaynaa kan ugu horeeyo kale marka ku dhufatid sida tan ayaa ku soo baxaysa hoos ayaa u digaysaa dabcan halkan waa free version iyo premium version kan waa mida qaybta lacagta ka bixinaysa hadaa lacag u baahan tahay inaad ka bixisid kana waa qaybta free-ga ahayd marka inagu kan free-ga ah ayaynu dooranaynaa download ayaad ku dhufanaysaa halkan download no free version sida tan ayaa ku soo baxaysa download taas ayaad ku dhufanaysaa taas halka ka muuqata wuu ku xawilmanayaa markuu ku xawilmo isagoo rar ah ayuu ku xawilmanayaa extract ayaa dhahaysaa sida tan ayaa ku soo baxaysa faylkan oo kale ku noqonaya waa furaysaa dabeedna kaas faylkaas ayaan u baahanahay faylkaas ayaad furaysaa kuwa kale uma furaysid sora fast free version.xml faylkaas ayaad furaysaa double click ayaa siinaysaa koodhkan ayaa ku soo baxaya control a ayaa dhahaysaa control c koodhka oo dhan ayaad koobiyeynaysaa dabeedna cancel ayaad iska dhahaysaa waxaad ku soo laabanaysaa meesha ayaad ku soo laabanaysaa sign in ayaad dhahaysaa dabeedna ciwaanka ayaa gelaysaa ciwaan tijaaba ayaanu iska samaysanay anagu kaas ayaanu gelinaynaa ciwaanku waa Gmail inuu noqdaa waa muhiim inuu Gmail noqdo ciwaano kale ma ogolaanayo sidan ayaa ku soo baxaysa waxaad dhahaysaa create Google Plus profile iyo samay marka hore dabeedna wixii ku weydiinayaa waa buuxinaysaa ama sidooda uga tagaysaa macluumaadkan wuxuu ka soo qaaday Gmail-ka wixii ku qorqorna hadaa u baahan tahay inaad ku bedeli kartaa marka anu ma rabo inaan ka bedelo create profile baan dhahayaa sawirkii wuu ku weydiinayaa sawir hadaa u baahan tahay waa ku save garaysanaysaa haddii kalena waa iska dhaafaysaa markaas save baan iska dhahaynaa anagu sida tan ayaa ku soo baxaysa marka save tiraahid continue to blogger ayaa dhahaysaa dabeedna create new blog ayaa dooranaysaa halka test waxaa ku qoranaysaa title-ka uu noqonayo page-ka kasoo muuqanaya sida halkaas sare oo ku qoran blogger welcome ku qoran oo kale marka wuxuun baynu iskaga qoraynaa page oo kale aynu iskaga qoraynaa halkan ayaad ciwaankaaga gashanaysaa ciwaanka marka waxaan gelinaynaa tijaabo marka meel cidla ayaa ku dhufanaysaa si loo hubiyo inuu available yahay marka hadduu available yahay saxda ayuu ku saaray haddii kale waa mid kale ku raadinaysaa marka addresskaagu waxa weeye tijaabo 662.blogspot.com template-yadan mid ka mid ah ayaa iska soo qaadanaysaa ka ugu horeeyo kale aynu iskaga dhufanayna kabacdina create blog ayaan dhahayaa sida tan ayaa ku soo baxaysa markuu aad soo create rahdid marka ugu horeysa waxaad tegaysaa theme-ka ayaa tegaysaa si aynu template-ka uga bedelno dabeedna customize ayaa dhahaysaa edit html baa dhahaysaa dabeedna waa kan koodhka html-ka ayaa ku soo baxaya koodhkan ayaad meesha ka masaxaysaa kaagii
soo download garaysatay aan hadda soo koobiyeenay ayaad ku paste garaysanaysaa. Paste ayaan ku dhahayaa, barbaan sugayaa. saa markuu soo noqdo save time baan dhahayaa. way save garaysmay. saan u eego view blog baan dhahayaa inuu ii save garaysmay timekeygii iyo in kale. template-kii inuu ii save garaysmay waa ujeedaan, template-kii uu ii soo baxay. Okay, waxay noo hadhay sidaan u edit garan lahaa template-ka aan waxyaalahan uga bedeli lahaa. waxaan tegayaa layout baan tegayaa, layout baan tegayaa. Okay, si waxaan xayeysiiskan uga qaadid, waxaan xayeysiis weeye, waxaa loogu talagalay aduu xayeysiisa u leedahay haddaad doonto inaad soo gashatid si aad lacag uga heshid. marka inagu hadda uma baahnin, waan iska qaadaynaa. markaasaa xayeysiiskan oo kale meesha uga qaadid, waa kan. kaasaa tegaysaa header edit ayaa dhahaysaa, waxaan ayaa remove dhahaysaa. okay ayaa dhahaysaa. saas ayuu kaaga tegi xayeysiiskii, saas ayuu kaaga tegi. refresh haddaan u diro, waa kaas uu iga baxay. loogadan oo kale si aad taada usoo gashatid waxaa samaynaysaa waa tan, waa furaysaa, remove image baa dhahaysaa. kaaga loogadaadii oo kale ayaa soo gashanaysaa. marka anuu taydii baan raadsanayaa, tan oo kale. save ayaan dhahayaa. si aan u bedelno ciwaanadan linkiyada halka ku yaala oo aa u gashatid linkiyadaada. hadda waxaan kuwan waa kuwii sambalka ahaa. waxaad tegaysaa main menu ayaa tegaysaa. dabadeedna kuwan oo dhan uma baahnid, waa iska deleteaysaa. delete ayaa iska dhahaysa, iyagoo dhan delete baa dhahaysa. okay, delete markaad tiraahdid halkan waxaa ku qoraysaa waxaad u baahan tahay, linkiyada waxaad u baahan tahay. sidoo kale tusaalena waxaan ka dhigi karnaa windows oo kale. windows halkana linkigiisii baa sii gelinaysaa, maadaama hadda linkigii weli hayn. kan aynu iska soo koobiyeynaynaa, kan hadda kaasunba hadda iska soo koobiyeynaysaa. dabadeedna samaynaysaa isaga paste ku dhahaysaa, add link baa dhahaysaa. halkan oo kale android baa dhahaysaa, android oo kale isna linki buu kaaga baahan yahay. linkiga hadhow baynu gadaal ka bedelaynaa, kan waa iska sii gelinaynaa. sidoo kale facebook oo kale ku war, waxaa rabtid ba adoo intaa u baahantahay baa gashanaysaa. saddexdaas aynu ku dayaynaa. saas markaas saddexdaa u gelisid save baa dhahaysaa. wax kasta markaa samaysid fadlan ha ilaawin inaad save tiraahid. aynu haddaba refresh u dirno, bal eegno inuu wixii isbedelayeen kale. saa ujeedaan loogadeedii waa soo gashay, linkiyadiina way isbedeleen. waxaa inoo hadhay social mediahan. okay, main menuga waa tagnay, hoos bay soo degaysaa, waa kuwan sidebar. social weekskan ayaa tegaysaa, edit ayaad dhahaysaa. social edit markaad tirahay social weekska hoos ayaa u degaysaa, ilaa aad ka gaadhaysid halakan kaas styleka. marka waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay hashtag. hadda inaga halkan aynu kalinu ka raadinaynaa, waa tan facebooka. facebook waa taas, facebook waa taas, social facebook waa taa facebook. halka hashtu ku qoran tahay ayaad waxaa gelinaysaa linkiga pagekaaga, sida pageka facebooka, pageka instagramka, pageka twitterka, whatever inta page aa leedahay. xitaa youtubeka channelkiisa wuu ku jiraa. marka halkaas hashtag baa wada gashan. hadda halkaa ugu horeysa hashtag waa kaas, kan kale waa kan hashtiisii, kan kale waa tan hashtiisii. hashiyadaas oo dhan baa masaxaysaa. fadlan double kuwaatada ha masixin, labada xarajimood dhexdooda baa ku qoraysaa, baa ku baasti garanaysaa linkigaaga. maadaama inagu hadda waa iska dhaafaynaa, inaa idin tuso un baan rabay. marka hadhowna save baa dhahaysaa. markasta wax samaysid save waa inaa dhahdaa. inagu cancel baan iska dhahaynaa. marka waa kuwan facebooka ugu horeeya, youtubeka, twitterka, kuwaada intaadan u baahnayna waad ka saaraysaa. waxaa inoo hadhay halka haddaynu kaga baxno
inta haddaynu kaga baxno pageka editkiisii sidii post loo soo dhigi lahaa ayaa nagu xigta. mulaaxada haddaynu eegno muhiim ah, way kala duwan yihiin templatedu. templatekan social mediaha intaa keliya ayuu ku leeyahay. qaar ayaa jira halkaas sare ku leh bottoms, hoosna ku leh bottoms. marka waa isku mid, kuwan iyo kuwaas waa isku mid. kuwa halka sare waxaa ku qoran top social media bottoms baa halkaa sare kugu qoran. meesha tan halkan ay ku qoran tahay, halkaa sare ayay ku qoran tahay. meeshan iclaanka ka masaxaynay ama xaysiiska ka masaxaynay ayay ku qoran tahay. top social media ayaa ku qoran. haddii uu template-ka la socdo bottomaha xagga sare ku yaala oo social media. haddii uusan la socon sida kan oo kalena just kuma qorna. marka editka template-ku sidii u kala horeeyaan bay halkanna uga soo kala baxayaan. tusaale ahaan template-keena waxa ugu horeeya loogadiisa saa ugu horeysa, waxa ku xigay xaysiiska halka ku yaalay. editka markaynu tagno waa kuwaas. halkan waa meeshii loogada laga soo gelinayay, tanna waxa weeye meeshii xaysiiska. waxa ku xiga linkiyadii halkan waa tan main menu waa kuwan, linkiyadii waa kuwan. halkan waa mainkii, waa meeshii bloga, meeshii postiga loogu talagalay wax soo dhigay. halkanna waa sidebarkan waa kuwan. okay, saa wax usoo dhigtid bloga wax usoo dhigtid, maadaama haddaan waxba ka muuqan, waxaad tegaysaa postis ayaa tegaysaa, dabeedna new post ayaa dhahaysaa. halkan ayaad ku qoraysaa waxaa u baahan tahay. waan soo qoraynaa, waa idiin soo noqonaynaa. markaa qoraalka soo qortid, haddaa u baahan tahay sawir inaad soo gelisid, halkan ayaad ku dhufanaysaa. sidoo kale video haddaa rabtid inaad soo gelisid, waxaad ku dhufanaysaa insert video. marka inagu hadda picture baynu soo gelinayna, insert picture baa ku dhufanaysaa. choose file baad dooranaysaa. meeshii ku yaalay sawirku baa raadinaysaa. loogada iyadoo kalena nagu soo gelinayna. sugaysaa inta uploading lagu sameynayo. marka halkaa kasoo baxo sawirka add selected baa dhahaysaa. waa kan sawirka waa kuu soo baxaya. marka halkan qoraalka ku qoraysaa, halkaas sarena title-ka gelinaysaa. casharka waxaa soo dhigaysa title-kiisa. inaga hadda tijaabin iskaga qornay bas. markaasaa u dhamaysid publish ayaa dhahaysaa. waxaan ilaaway sorry, link haddaa rabtid inaad soo gelisa halkaa link insert link baa dhahaysaa. halkan linkigii baa gelinaysaa www wuxuu ahaa. halkanna linkiga magaciisa sida click here oo kale baa ku dhufanaysaa. halkan ciwaanka oo kale gelinaysaa. marka publish baa dhahaysaa markaas. okay, wuxuu ku weydiinayaa google plus-kaaga page-kiisa ma kugu share garayaa. share baa dhahaysaa. okay, intaa markaa samaysid, waxaa kuu hadhay label wax la dhaho inaad u samaysid iyo bahalkaaga. masalan casharkan oo kale hadduu ahaa wax ka hadlayay windows oo kale, wax windows ku saabsan hadduu ahaa, waxaad samaynaysaa halkaas aad ku dhufanaysaa, tig baa saaraysaa. halkan aad ku dhufanaysaa new label baa dhahaysaa. windows baad qoraysaa. windows. marka ogow halkaas markaan windows ku qoriyo casharkaas aan sameeyey wax weeye wax windows ku saabsan. sababtan saan u leeyahayna waxaan rabaa inuu ii galo halkan windows ay ku qoran. qofku markuu windows ku dhufto inuu wixii windows ku saabsanaa oo dhan, casharadii windows ku saabsanaa oo dhan uu soo bandhigo. wixii android ku saabsanaa oo dhan, wixii facebook ku saabsanaa iyo aan soo on. marka okay, saa markaa tiraahid view baa dhahaysaa. okay, sida tan markuu casharkii kuugu soo dhigo, hoose ayaad u degaysaa. taagiskii halkanaa ka arkaysaa laabeeladii. marka inagu hadda hal mid baynu soo sameynaa windows la dhaho. labelka windows markaa ku dhufatid, hadda windows keliya inoo samaysan, labelado dhan hadhow halkaas kaaga soo baxayaan. markaa ku dhufatid sida tan ayaa kuu soo baxaysa. inagu markaa linkiga keliya nuga baahnay, linkiga ayaad ka koobiyeysanaysaa. waxaa ku noqonaysaa page-ki editka ku noqonaysaa. dabadeedna waxaad tegaysaa layout. hoose ayaad dugaysaa, main menuga ayaa imaanaysaa, edit ayaa ku dhufanaysaa. dabadeedna labelkaynu sameynay windows ayuu ahaa, windowska ayaad edit dhahaysaa. linkigii ayaad bedelaysaa. kii hadda cusbaa aa soo samaystay ayaa ku bedelaysaa. save ayaa dhahaysaa. isna save ayaa dhahaysaa.
dabeedna save arrangement ayaa dhahaysa. Okay, marka iminka haddaan refresh u diro waa kan homeka markaan joogo casharkii aan soo dhigay wuu iga muuqdaa. Windowska markaan tagano waana wuu iga muuqdaa. Waa ka Windowska markaan tagano wuu iga muuqdaa, labadii meelood buu iga muuqdaa. Kuwa kalena sidaas oo kale ayaad dhahdhahaysaa, saasaa ku samaynaysaa iyagoo dhan. Waxaa hadhay haddii aad rabtid video inaad YouTube-ka lasoo share garaysid, video YouTube-ka yaalo oo kale haddaad rabtid inaad soo share garaysid YouTube furno. Video YouTube-kaaga ku yaalo oo kale haddaad u baahan tahay inaad lasoo share garaysid, waxaad ku dhufanaysaa share ayaad ku dhufanaysaa videoga markaad gaartid. dabadeedna embed ayaad dhahaysaa, koodhkan ayaad koobiyeysanaysaa, copy ayaad dhahaysaa, cancel ayaad iska dhahaysaa, meesha ayaad kusoo noqonaysaa, post ayaad tegaysaa, new post, halkan ayaa HTML ayaad tegaysaa, dabadeedna koodhka ayaad ku paste garanaysaa, halkan ayaad ku noqonaysaa. Markaa sugaysaa video inta kusoo baxayo. Saa ujeedada videoga wuu soo baxay. Haddaan videoga kasoo qaado computerkayga oo kale wuu yaraanayaa, wax yar oo dhexda yaala ayuu noqonayaa. Meesha kani wax weyn ka yahay. Marka waxaa fiican marka hore YouTube-ka inaad soo gelisid, dabadeedna marka dambe aad halka keentid. casharkan maanta intaas ku eegaya insha allahu tacaala. Waxaan rajeynayaa in casharkan wax badan ka faa'iidaan oo faa'iido badan idin taro. haddii wax su-aalaha qabtaan fadlan commentiga ku dhaafa. markii ugu horreysay haddii kanaalkayga soo booqatay ay tahay fadlan subscribe dheh. casharkan haddii aa waxuun ka faa'iideyna fadlan like dheh si aan u aragno dadka wax ka faa'iida casharkan. waa anagoo ah groupka PSD oo idinkaga tegayna. assalaamu calaykum waraxmatullaahi